بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديان ملك السؤال جوكتان يسوى البادنو داونيسان كسوى دوادة برامج قارة وان كدياريني حسكا آسكا مناسبة كودا أغوستا دولة بودلان oo lagu qabtay munaasabado lagu maamuusayo magaalooyin badan oo ay ka mid tahay magaalada madaxda dawladda Puntland ee Garowe. xuska munaasabada 1 Agoosto ah maalinta dibadda loo taagay ama la aasaasay maamulka dawladda Puntland ee sanadkii 1998 la dhisay isla markaana ay haatan ka soo wareegatay 14 sano ayaa bishan Agoosto 1 laga xusay magaalooyin badan oo ku yaalo gobolada Puntland. munaasabadii ugu ballaarneyd oo ay ka soo qayb galeen madaxda ugu sareysa dawladda Puntland madaxweyne Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Faroole madaxweyne ku-xigeenka Cabdisamed Cali Shire gudoomiyaha baarlamaanka Cabdirashiid Maxamed Xirsi taliyaha ciidamada difaaca General Saciid Maxamed Xirsi golaha wasiirada xukuumadda Puntland mudanayaasha baarlamaanka marti sharaf lagu casuumay kumanaan ka tirsan dadweynaha ee ku nool magaalada Garowe ayaa si wada jir ah uga qayb qaatay munaasabada xuska. munaasabadan oo 12kii aroornimo ee 1 Agoosto ee bishan ka bilaabatay ayaa waxaa socod gaadi ka ciyaar ah ay ku soo mareen ka qaybgalayaashii munaasabada oo isugu jiray ardayda dugsiyada waxbarashada iyo jaamacadaha hay'adaha dawladda dhalinyarada isboortiga haweenka qaar ka mid ah shirkadaha ganacsiga iyo ciidamada qalabka sida qaybahooda kala gedisan. waxa ay socod ku soo bilaabeen garoonka Mira Awaare ee magaalada Garowe iyagoo ugu dambeyntiina soo maray jidka dheer isku xira magaalada dhaxbartankeeda isla markaana aakhirkii soo gaaray farxadda weyn ee loogu talagalay xafladda in lagu qabto halkaas ay ku sugnaayeen dadweyne aad u fara badan. waxaana munaasabada sidoo kale ka qayb qaadanayay fardo mootooyin baaskiilo dadkana waxaad mooday inay aad ugu faraxsanaayeen qaabka munaasabada loo agaasimay. madaxweynaha dawladda Puntland Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Faroole ayaa dadweynihii ka soo qayb galay munaasabada 1 Agoosto ee aaska dawladda Puntland kula hadlay halkaasi isagoona sheegay in sanadkan halku dhiga sanad guurada Puntland ay tahay nabad horumar iyo midnimo wuxuuna ilaah ka baryay in Puntland ay ku gaarto sanadaha xiga nabad iyo bashbash. dhanka kale munaasabad kale oo ahayd mid casho sharaf ah ayaa lagu qabtay aqalka madaxtooyada isla habeennimadii iyadoo ay ka soo qayb galeen madax kala gedisan oo ka tirsan maamulka dawladda Puntland. madaxweyne Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Faroole ayaa khudbad dheer oo meelo badan taabanaysa ka jeediyay taasi oo loogu talagalay xuska munaasabada. madaxweynaha ayaa waxa uu ku nuuxnuuxsaday isla markaana amaan iyo bogaadin u jeediyay dadweynaha uguna hambaliyay sanad guurida 14aad ee ka soo wareegatay aasaaska maamulka dawladda Puntland wuxuuna carabka ku adkeeyay madaxweynaha arrimo ay ka mid yihiin amniga iyo dhaqaalaha isagoo sidoo kale ciidamada Puntland sida ay uga qayb qaataan howlaha sugidda amaanka ku amaanay. waxaana madaxweynaha uu dhanka kale ka hadlay arrimaha ansixinta dastuurka oo uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay. intii soo qaban qaabisay dabaaldegii maanta iyo shirka caaw oo ahaa guddigii qabanqaabada xuska sanad guurada 14aad ee dawladda Puntland madaxweyne ku-xigeenka madaxda ka ahaa xubnaha dawladda iyo saraakiil badan oo dawladda ay ka mid ahaayeen. aad baan uga mahadcelinayaa sida habsamida leh ay munaasabadaas u soo agaasimeen. waxaan kaloo mahad u celinayaa dadweynaha reer Puntland oo dhan maanta caasimadda Garowe keliya maaha meelo badan oo dalka ka mid ah tabaashaad iyo dabaaldeg ka waday maanta oo si qiimo iyo qaaya leh u xusay maalintaa una qiimeeyey iyagoo raalli ka ah inay maamul iyaga u gaara 14 sano ka hor ay dhisteen barwaaqo iyo baraarana ku gaareen. waxaan maalintaan qiimaha leh oo 1 Agoosto maalmaha la oran jiray oo barakaysan yihiin Oktoobar iyo waxaas la oran jiray laakiin tan waxaan u maleynayaa inay barakaysan tahay maanta oo maalin Ramadaan ah oo xuskiyo ku reebmay ومسرع وافقي maalintii dastuurkii adugeeyeen diiwar ku baxeen waana shirarka badan halkaan ku qabanay saddex shirkuna lagu qabtay shirarkana lagu qabtay qaarna xamar qaarna lagu qabtay Addis Ababa qaarna Nairobi lagu qabtay ilaa Turkiya qaar loo aaday
لندن لو آذي ما يستركيسي مرقدي حمر جوبتي أيمان تأنسحيسي دستور كاس مدى فرطن يا لما السنة أنقلت دستور لهين إنه ما أنت دستور يشين والدستور فدرالي أو يهي وحكدد مرالين على ما يستري دونا إن شاء الله ومكي عدي هوش عليه هاي لما يستري أفرت سنة وصوص حتى مركا أرنتاس اسكو بيغانتي waxay tahay farxad weyn dadka reer Puntland iyo dadka Soomaaliyeed dhamaantood waa bari Puntland biyaha kanay ka tusay gabay iyo quraan iyo ayaan hees tusaale yaraale waa ku dhow yahay arintii khudbada aan akhriyaa waxa kaliya sameeynaya waxa weeye waxa tusaalaha oo ah murtida leena ku deeqsin karo وكان كان سبب الله خير إلى أن بدأ الرأي إلا نسبيه وأقول بنان وأنا لا هذا الشيء وأمرك والله هذا الشيء شعبك والله هذا الشيء أي قليلا يسوي شيكتي وحي قبابا أنا وي شيكتي وحي تسالة أنا وي بيس انت waxay ka turjumayaan dareenka dadka amnigeena gudahaan waxweyn laga qabtay ciidamada la abaabulay tababaro loo sameeyey ciidamo cusub la sameeyey oo ciidanka badda oo booliis isagoo ah la sameeyey kii daawish dib loo habeeyey ciidamada tareen gareeyey ama la tababaray meel kastaba lagu tababaray dhulka gudihiisa iyo dibaddaba intaba in dawladdu isu xilqaantay intii tabarteeda inay qaabayso waxay heli karto xoogeeda isugu geyso inagoo aad ogtihiin inaan anaga meelna hubina ka soo gelin laynaan ku wataaquleen dowladna inayna siin aad ogtihiin sida koonfur oo kale ciidamada intaa loo tababaro markaa loo soo hubayo keliya iyadoo ciidamo ayan shisheeye inaga dhulkeena ayan amnigiisa inan la sugin iyadoo aad ogtihiin in dagaala ka dhaceen argagixisadu ku soo duushay waxbadeedu ay meelo badan ku fiday dalka dhaqaalihiisa iyo sharaftiisa ay curyaamisay dadaal weyn laga galay maanta ciidamada Puntland ay ku sugan yihiin jahooyin badan oo dalka ka mid ah howla culusna ay ka hayaan magaalooyin waaweyn oo hadda gaalkacyo ka mid tahay garowe ka mid tahay boosto ka mid tahay buuraleyda ay ka mid tahay cadow ku hor joogaan halkaa ku milmay oo jooga kuwa kalena ku gurmayaan inay joogaan baargaal iyo xaafuun iyo ayl iyo isku shuban ciidamada mariinka booliiska wixii aan qaban karno aan qabanay wixii ilaahay aan ka rajeynayno inuu nagu gacan siiyona aan rajeynayno inaan dhammaystirno haddii aan la idmo xagga amni waxyaalaha la yaab kale oo aan laga xishoonayn in la sheego u baahan waxa weeye dadka la laynayo meelaha qaarkood baa laga helaya dhulka kale intiisa kale lagama lahayo su-aashaas waa la isweydiin karaa maxaa yaa wada yaa dadka laynaya berigeedada beriyihii dowladdii militariga ay jirtay heesaa la tirin jiray iyadoo dowladda laga baqaayo markaa macnaheeda si kale hadhow looga soo dhex saaro heesahaas anigu heesaan maahay laakiin muxuunbaa igu soo dhaca waxaan maqli jiray tagonow jecelow dumarkaba malayside maragaa lagu waxaa loogu laynayaa dadka beledweyne iyo gaalkacyo iyo baydhabo iyo xamar iyo boosaaso iyo garow iyo laascaano oo meelaha kale loogu leeyahay soo su-aal jawaab u baahan soo maaha cid kasta oo damiirli way ka soo saari kartaa jawaab oo wax kala garanaysa ama dalka dadka u dhashay ahaa ama shay ahaa waa su-aal jirta waxaan leeyahay dilalka qorshaysanoo brimanigeedada la laynayo soomaalida waa argagixiso siyaasadaysan waxaan ku dhiirinayaa dadkeena oo dhan shacabkeena ammaankiina sugidiisu wuxuu ku xiran yahay ka qaybgalka amniga inaad hayadaha amniga la shaqaysaan waad la shaqaysaan markaa xoolaha cashuurta markay la yimaadaan qabsanaya oo lacagtii hoos u dhigaya doolarku intuu gooyey shilinka dhibaato weyn oo riba ah ayay dadku ku hayaan
dowladda waxay ku kaliftay inay lacag doolara ay cashuuraha ku qaado si dabadeed ay u sahasho in shilinka ay ka dalbanayso ganacsada culays uga foqo dabadeedna waxay dowladda ku keentay in doolar suuqa ay geyso si shilinka ugu soo gado oo ku khasirto lacag doolara hortaasuna miisaaniyadda ay dhibaato weyn u geyso insha allah waa ka bixi doonaa waana isbalaasgalayn doonaa oo ismiisaani doonaa dhaqaalo haddii ilaahay وحوش يوريت الجرع يحالف waxaasoo dhaqaalaha qaybtooda ka qaadanaya dhaqaala burbur bay noqonayaan ay hantida dadka ka dhaxaysa oo guud oo commons waxa la wadaago haddii loogu dhaqaaqo in la baabi'iyo hadda waxaa soo haraya dadkii keliya dadkiina haddii hantidiisa uu baabi'iyo haddii wuxuu ku noolaada heli maayo marka waxay u baahan tahay dhinac kastaba ha ahaatee dhaqaaluhu wasi saameeyaa in wixii dhibaato caam ah keenaya in laga feejignaado oo dadku qayb ka qaato gaar ahaan dadka reer miyiga ah aad baa looga baahan yahay inay qayb ka qaataan iyo dadka badda ka shaqaystayba waad ogtihiin inaynu muddo kusoo jirnaa sanadkii hore inaynu dhowgeed socod samaysanay innagana rood maabale oo jeex aad u jeedid haddaan anagu rabno kuraas ragga yaga halkaan joogo puntland ku jira siyaasadeeda dul hore shicii laguma jiro sidii dhaqanku ahaa ninka madaxweynaha puntland way sirixi jiray markii marxuumkii cabdullaahi yuusuf aan marsalan ka soo qaadno bilowgii la tawsaday waqti doorasho dowladda federaalka ku jiro anagu isma sharcin waxaana u yeelayaa dhaartii aan maray waxay ahayd inaanan puntland cidlo uga tegin aniga iyo ragga aan wada shaqaynayno soomaaliyana waxaan ka qaban karnaa ka qaban marka laba faras qofkii isku fuula baa le marka laba faras isku fuula arrintaasi waa naga dhab waana waxaanu go'aansanay waana ku soconaynaa haddii ilaahay waxaan aad iyo aad u rajaynayaa inaan dadkeenu awlidoobo waxa wanaagsan ilaahay tuso nabadgelyadana ciidamada kala shaqeeyo horumarkoodana ay ka shaqeeyaan saburna yeeshaan xafladan casho sharafta oo ay ka hadleen mas'uuliyiin badan oo ka soo qayb galay ayaa iyaguna munaasabada ka hadlay iyagoona u mahadceliyay dadweynaha Puntland oo ay sheegeen inay yihiin dad jecel nabadda iyo ammaanka isla markaana la shaqeeya dawladda iyo sida dawladda Puntland ay u xurmaysay in bulshada rayidka ah ay qayb weyn ka qaadato la'aanteedna waxba ay socon kareen kooxdii inay maaweelinaysay bulshada rayidka ay ka tirsan yihiin urur weyn ururadaas baan anagu ka mid nahay hay-adeedu ka mid tahay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay caawa ururadaasu ayagoo qaybo kala duwan ka socda dumar iyo dhallinyaro iyo kooxaha muusiga ka socda inay ka soo qayb galaan meesha tan dawladduna ku xurmaysay inay martiqaad ku fidiyaan midda labaad waxaan aad iyo aad mahad ugu soo jeedinaya iyo hambalyo dawladda Puntland iyo xubnaheeda kala duwan iyo hay'adaheeda kala duwan ee dastuuriga ah sida wanaagsan oo ay sanadka kan u soo abaabuleen macallada xuska 14aad ee dhismihii dawladda Puntland aad iyo aad bay ii farax gelisay waana ku baadsanayaa waxaan rajaynayaana mustaqbalka haddii aan leedmo sidaan inaynu ka sii fiicnaano barwaaqin iyo baraare gaarno isbeddel siyaasadeedna oo hadda socdaana inuu najaxo baan rajaynaya waxaan loo istaagay keliya inaan u hambaliyeeyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan guud ahaan munaasabadda 14 guurada أغسطس كوديدا ومركي الله أساس بطلان يعني رجع شعب الصومالي الأردن قارهان ومدرير بطلان
waxaan leeyahay hambalyo munaasabadda 14 guurada ka soo wareegtay curashadii Puntland awgeed inaan ugu mahadceliyo dhammaan madaxweynaha ku-xigeenka ra'iisul baarlamaanka golayaasha dawladda marti sharafka kala duwan ee hay'adaha caalamiga ka soo qayb galay odayaasha iyo dhammaan saxaafadda oo dhan waxaan idin leeyahay sanad guuro wanaagsan sanadka sanadkiisa Allah nagu wada gaarsiiyo nabad iyo barwaaqo dhalinyaro nabadba waa nabad dhalinyaradii maanta ay madaxdii biraan nahay haddaynaan ismaqalo yeelan mowqifooda jira mugdi kama baxayne midigta iyo bidixdiyo sidii laba mataanaa waa inaan midowno mar kastaba wixii jira isku meel ka noqono kalana maarmi mayne mashaqadii qabiilkiyo musuqmaasuqii hore waa inaan ka maagno nabad lagu mushaaxiyo dalka horumarkiisiyo maslaxada ka talina midda kale waxay tahay sida madasha caawa haddii mooshinkiisii maxfal looga doodu meel maray dastuurkii maashaa allaahuye waxaa miiska loo yaal magacyadii asxaabtiyo xisbiyaal mug weyno majaraha ku loolama maasha allah waa inaynu kii mudan codka ugu micino madaxaan ka dhigannaa sax weeyaan waa inaynu kii mudan mahuraanka ciidiyo saddex midabla calankiyo shacabkaba matali kara madaxaan ka dhigannaa إلا درجة منطقة إن كلمة مالو ومنها يدحيسين. متى عن كسر إلي مرتدى يعانبا كنا عاولاك وكان موقف كيوم حاجة دريسة. وارلتو سيد محمد أنتري قد وحي معاشان نبدأ اللي قش الضيق ومركز يتفاهم ملتال. اللي ما تشوك ترى بالكستاء تشوكان بدني ماذا تحدث الدين والله كمان ماربان يوم مقدس دينية ومقدس دينية. waxaan maanta digayaa kuwa magaca dilaya moolku riday naftoodii mooriyaan badeednimo dhaqsowga macaasiga soo qaba maraakiib mabdaroodu uu yahay maxas iyo dad maataa madax furashadoodiyo xaaraan la malabsado muslimnimadu diidde dhallinyaroy masalada ka soo noqda oo iskaga taga taas aanu dardaarankeedu dhallinyaroy macnaha iyo mowqifkaad ka hadasheen murtidoona ku sheegteen ku maqsuuday laabtii ودي مدودي مقع قرى وداكتا كم معاشي الدنيا كلنا لم يتكاها وحماك وقتشدا مرقويا تهريب بلا نهو بحقيقتي ملايين رابحي وعنيم الله يهي من كموردي سيو من كيس عيدين لك دورتو محلنا مكون ميسيني انت الموت كبودي وجبه بها دحي نبلغ مشاحيو بلكاقع معاشيو بعدين يا بفرون له انت هدمالك الجليسان هقوم هن تهريبي مسيبنا تبغى نقول انت عشان ليه واو انت انت لا تشوفه يا مريم بدل ماذا waxaa jira mushkiladana madaxweyne iyo muruga ka qaaday al-shabaab ma maqashay mooriyaanta baaso madaxnimo u dirirka waa cadawna mariyo si weer mas'uul muska ariga kala baxa ayay ruuxi magacayo madaxdiga wax garadkana mish lagu fushaano dabadigu maleegaan subhan allah warwa midan la yaabee وروامد الله يا الله مسجد كي إلهي مسلم قرينكي دلي مثل يري جنة تجي منافق هالكم مدن مركبي أغانينه ويلا معانيه أبها من دين مري ميلنا كوسو آس حربها مينكا متكسال يريو ألون ماكو كاتين ما تبغى جورعين آخرنا عذاب مدن مسلم ما كنا قنوا مبدأ إنسان ما بنين الدنتي وكان قرن يا شعب كونوا كهارين هدي عن هريرها دنت جود ولا هين هقولنا قبل يودي عبسة كمان بحينه هدف كيو شيء ده بلان ها تلاد هاي وين نرجعنا مرحبا أتانا إذا اللي يردي ذلك إنه هرم مرة هنانكي دولة النمو لما أنت كهول قليه هبال وحن دونينا وفلان يداعدنمو وحن كوهب ساميو قبيالدين يهرتون من دماغنا النار حبنا هذا يعني ونبي شيء من مغلسان حتى الأرض يبانه سيدو هميجي وحبرشة هير كسره شهادة مكان كهلو دلكي سأسكره هنتيو
wadani lagu soo hirto habsamida iyo nabadgelyada horseedaa noqonaya. horta annagu hooyooyinka iyo haweenkii haddaanu nahay habeen duway iyo hargaay waxaan heedan ugu jirnaa inuu dalku horumara mid hoosu gunuunuciyo hududka waa diidannahay haliil jago uma qabnee hagaagaan raadino hoggaankaan raacsana howlaha uu noo qabtana runtii hambalyaanu niri hareeraha dunida iyo unada hoygay fadhida ayaa buntland hadda laga yaqaan ha yeeshee dawladay gudaha habac baa ka jira hantiilaha ganacsadaa jawaab baa hore dhaco haragga laga soo bedelay hadeeruu naga gadaa dawooyin horeo dhaco kulay lagu huuriyoon horena haltayaa lahayn tiimbara lagu soo hakiray hadeeray naga gadaa naftana halis bay ku tahay iyana hubin bay rabtaa sarifka hoos u sii socdiyo macaishad hawada ku xiran hab la isugu dheeli tiro hay-adaha shaqada iskale iyana hubin bay iyana hawlgal baa laga rabaa kormeerka halkaan yimow intaasoo wada ha'da horta hoggaanshaha nooga gey xafladda oo sidoo kale lagu soo bandhigay riwaayado iyo suugaan ka turjumaya qiimaha ay leedahay nabadda isla markaana dadweynaha lagu boorinayo inay ka qayb qaataan oo ay la shaqeeyaan dawladda Puntland ayaa waxa halkaasi ku soo bandhigay kooxda Waabari Puntland oo ay ka muuqatay sidoo kale fanaanada caanka Saada Cali Warsame oo iyadu dhawaan soo gaartay deegaanada Puntland isla markaana shil gaari ku qabsaday qaybo kamid ah deegaanada Puntland waxayna amaan u soo jeedisay dadka Puntland iyo maamulka sida ay ugu gurmadeen shilkii ku dhacay isla markaana waxa ay halkaasi ka jeedisay hadallo qiirale iyo suugaan ku aadan qiimaha nabadda wasiirada ilaa iyo agaasimayaasha ayaa hambalyo mudan shacbigeena reer Puntland ama shacbiga Soomaaliyeed baan idhaahdee sharafta mudan 22 sano sanadkii 22 sanaad inaan ummadda Soomaaliyeed iyo dalkaygii aan hor imaado oo aan la ciido taasaa iyadu waxaad loogu farxo ah waxaan hambalyaynayaa sanad guurada 14aad 8 gobol Puntland waxaan aad ugu faraxsanahay anigu munaasabadan ma oranayo waa reer Puntland waxaan leeyahay waa munaasabad Soomaaliyeed waa Soomaaliya adaa lahaa sharafta iyo quruxda Soomaaliya adaa lahaa shacabkeena qiimaha leh Soomaaliya adaa lahaa ciidankeena darmo Soomaaliya adigaa lahaa waxaynan arag muddo Soomaaliya adigaa lahaa Puntland goboladaas aan ka hadlayo waa kuwii gobonimada dhaliyay labada dhinacba waqooyi iyo koonfurba waa kuwii sharafta iyo wanaagga inoo keenay calankaan hoos harsanayno waa kuwii sababta u ahaa maantana waxaan filayaa iyaga awalba dalka u taagnaa iyo dadka maantana waxaan filayaa dawlad rasmiya iyo isku xidhnaansho iyo mid inay maxay hogaaminayaan waa yidhi dilo wanaagsan marka waxa jirta hees kale oo haddii internetka waa laga heli doona waa laydiin soo saari hees kale oo aan sameeyey beri dhexdaas ayadoo magaceeda waxa la yidhahdaa bele xijaab laakiinse dhallinyaradii baa boosaaso ku gelisay internetka dadkiina waxay u qaateen heestu boosaaso kale inay ka hadlaysa heestu bilaadal bond oo dhan bay ka hadlaysaa Puntland waddankeena bilaadal bond baa loo odhan jiray haddaan qaadi karo bal iyadii baan isku dayayaa bal hadda soo daa بسمك بلا بشيطان بركة بسم الله ملايك تبور تجوب تحصب حدي بسم الله بسم الله بسمك بلا بشيطان بركة بسم الله ملايك تبور تجوب تحصب حدي بسم الله بسم الله بسم الله
waqtiyo hore oo dadku dacawska bay iska cuni jireen intooda badan ayaa halkan waxay la baayac mushtaraysta adduunka la diili jirtay marka waxa weeye war qofkaaga wax ah ee wax ahaan jiray qofkaaga un baa lagu daba fayla si aad jabka uga baxdid laakiin haddaad tiraahdo kiibaan cunaya adiguna waad sii shiidiyoodow Puntland ha noolaato Soomaaliya ha noolaato isku soo wada duubay xuska maalinta aas-aaska dawladda Puntland oo ku beegan 1 Agoosto ayaa sanad walba la qabtaa bisha Agoosto 1deeda waxaana sanadkan ka soo qayb galay madax ka tirsan dawladda oo ugu horeeyay madaxweyne Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Faroole iyo sidoo kale madaxda kala gidisan ee dawladda iyo dadweynaha aad u fara badan iyadoo sidoo kale lagu casuumay marti sharaf kale oo ka kala socday hay'adaha caalamiga safiirka dawladda Itoobiya iyo qaybaha kala gidisan ee ururada bulshada rayidka daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaa barnaamijkaasi gaarka oo aan ka diyaarinay xuska maalinta aas-aaska dawladda Puntland ee 1 Agoosto oo lagu qabtay magaalooyin badan oo ay ka mid magaalada Garowe xafladii ugu ballaarneyd oo iyadu lagu qabtay magaaladaasi barnaamijka waxa ay soo diyaariyay xafiiska Honkebel ee magaalada Garowe waxaana idin soo jeedinaya anigoo Ilyas Ahmed Cilmi intaan barnaamijkan lamida ku kulmi doono daawadayaal waxaan ku dhaafeynaa sidaas iyo nabadgelyo